kalfadhigii 48aad ee golaha wasiirada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo shir gudoominayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxay maanta golaha wasiiradu ay dood dheer iyo falaqeyn ka yeesheen laba xeerarkaas oo kala qabiyo qoraalka xeerka ka hortagga la dagaalanka ganacsiga iyo tahriiminta dadka iyo wax ka bedelka iyo kaabista xeerka la dagaalanka mukhadaraadka xeer lambar 22 labadan xeer ay goluhu dooda dheer ka yeesheen ayay waxay u dul istaageen qodob si ay naaqishaad ugu sameeyaan tilmaamaha ay xeerarkani bixinayaan waxayna golaha wasiiradu ay dood aad u adag ay ka yeesheen qodob waliba waxa uu tilmaamayo iyo waxa loo cuskanayo iyadoo ay xeerarkani qeexayaan sidii looga hortagi lahaa ee looga gaashaaman lahaa isla markaana gacan bir loogu qaban lahaa cid kasta oo caadaysata cid kasta oo faraha kula jirta iyo cid kasta oo isku dayda inay qayb ka noqoto tahriibinta iyo ganacsiga dadka iyo mukhadaraadka faraha badan ee kala duwan haday tahay xashada haday tahay khamriga iyo wixii kale la halmaalaba dood dheer iyo falaqeyn adag kadibna waxay golaha wasiiradu cod gacantaaga ay ku ansixiyeen qabiyo qoraalka xeerka ka hortagga la dagaalanka ganacsiga iyo tahriibinta dadka iyo wax ka bedelka lagu sameeyay xeerka la dagaalanka mukhadaraadka xeer lambar 22 xeerarkani waxay wax weyn ka tari doonaan dhibaatooyinka ka yimaada mukhadaraadka iyo tahriibinta dadka iyagoo lagu xakameyn doono mushkiladaha iyo dhibaatooyinka ay abuuraan aad iyo aad